kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha mudan ee hawada nagala socdo daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno Dr. Adna Aadan Ismaaciil waa ergiga xukuumadda Soomaaliland u qaabilsan wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo safar shaqo ku joogta dalka Sweden oo soo booqatay xafiiska safaaradda Soomaaliland ay ku leedahay magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden. Dr. Adna waxaa ku soo dhaweeyay xafiiska safaaradda wakiilka Soomaaliland u jooga dalka Sweden Ambassador Sakariye Xasan Wacays oo uga warbixiyay qaabka ay safaaraddu u shaqeyso iyo hawlaha ay dalka u qabtaan. Dr. Adna ayaa ugu hambalyeysay safiirka horumarka uu gaarsiiyay safaaradda dalka Sweden iyo shaqooyinka ay qabteen. Dr. Adna Aadan Ismaaciil waxay sidoo kale fariin iyo talooyin muhiim ah u dirtay dadka shacabka reer Soomaaliland ku dhaqan dalka Sweden oo ay kala hadlaysay wadajirkooda iyo horumarka wadankooda sida ay u horumarin lahaayeen. haddaba barnaamijkaas oo dhameystiran daawasho wanaagsan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ilaahay baa mahad leh. Maanta Dr. Adna Aadan Ismaaciil oo nagu qaali ah dhammaan ummadda Soomaaliland waliba ana si gaar ah ay farxad iigu tahay inay maanta nagu soo booqato xafiiska wakiilka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Sweden. runtii waxay tahay farxad aan la koobi karin. waxaan leenahay Dr. Adna soo dhawow. qiimo gaarana runtii way noo leedahay maxay maanta in ay sidoo kale iyadoo timi shaqo rasmi ah oo ay baarlamaanka dalkan Sweden maanta xildhibaanada ay ka jeedisay khudbad taariikhi ah oo runtii xildhibaanadii iyo mas'uuliyiintii meesha isku timi wajigooda ay qiira ka muuqatay runtiina aan qirayo qof kasta oo Soomaaliland darahna aan gaarsiinay in fariintii aqligii Adna Aadan iyo aqoonta u leedahay dalkeeda ay u gudbisay iyadoo cilmiyeysan xildhibaanadii baarlamaanka taas oo anigu aan si gaar ah farxadiigu ah oo shaqadeydii ay wax weyn igala qabatay isla mar ahaantiina goobtii aan joognay xildhibaanadu aan ballan ku kala galay sidii aan qadiyada mid uga wada noqon lahayn saaxiib cusubna wada heli lahayn marka maanta kama sheekayn karo dareenkayga shakhsinimo mas'uul ka ahaan xafiiskan safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Sweden ilaahay uu noo keenay maxayday waxaan oran karaa waa malaa'ig uu noo keenay maxayday Adna Aadan bisha Ramadaan marka anaga laytal khadarkii waa la noo soo xaday noo soo degdegay bisha Ramadaan marka aad iyo aad baan maxayday shucuurteedu maxayday u faraxsan tahay runtii Dr. Adna shalayto marka aan ku wargeliyay soo booqashada ay dalka noogu timi aan Facebook geliyay ixtiraamka ummadda u haysay jacaylka ay dawayaan runtii waxa weeyaan waxaan ka dareemayay feedbackii iyo Adna heerka ay ka taagan tahay ummadda Soomaaliland guud ahaan waanad u qalantaa runtiina dhammaan shacabweynaha Soomaaliland iyo gaar ahaan reer Sweden aad baan uga mahadnaqayaa wanaagga iyo kalgacaylka ay u hayaan Dr. Adna aan ku sii dheeraaninin wax leeyahay ku soo dhawow xafiiska maxay wakiilka Jamhuuriyadda Soomaaliland Sweden ku soo dhawow Sweden haye Bismillahir Rahmanir Rahim. danjire Sakariye hooyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo maxaan ku madaxda jaaliyadda Somaliland iyo intii Somalilanderska ahayd ee aan halkan ku arkayba aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin soo dhaweyntii quruxda badnayd ee sharafta lahayd iyo wajigii furnaayo farxadeed ugu soo dhaweyseen haddii maanta aynu meeshii aynu ka hadlaynay baarlamaankii aynu wax khayri ka soo baxaan insha Allah way ka soo bixiye horta libinteeda iyo amaanteeda adigu baa leh haddana si qalqaaliseen oo haddana si diyaariseen anigu dadkaad maanta aanu la kulanay aanu la hadalay soo fadhiyay meeshii shirka inoogu yimid ma yimaadeen hooyo markaa anigoo afkii Somalilanderska ku hadlaya waan kugu mahadnaqayaa hooyo ilaahay ka abaal mariyo waxa la yiraahdo laakiin safari fool ma dhaqdo Sweden dhowr jeer oo horaanimid waa markii ugu horeysay ee aanu la kulanay dad madaxa oo dalkan madaxdiisa kamid ah waxaan rajaynayaa sidii maanta ballamaha u dhacayeen
in xidhiidhadu intaa kasii wanaagsanaan doonaan ilaahay baa taa gacanta ku haya waqtigan rabadaan baanu joognaa waxaan doonayaa inaan maanta la hadlo dadkayga reer Somaliland waxaad moodaa inay marmarka qaarkood iloobaan in adduunku mar waa reer mar waa xisbi mar waa urur mar waa magaalo mar waa gobol laakiinse intaasoo dhan oo isku duubani waa qarankeena Somaliland 27 sano jiray horta muxuu ku yimid 27 sano horteed iyo 11 sano ka horeeyay 12 sano ka horeeyay waxaad intiina badan halkan ku timaadeen ama qurbaha ugu soo yaacdeen ama idinkoo yar yar waalidiintiin idin soo xambaareen oo idin la soo baxsadeen waxay idin ka badbaadinayeen qarax iyo toogasho iyo diyaarad iyo xasuuq ayaa badankiinu laydin kala soo baxsaday ilaahay baa idin soo badbaadiyo halkan idin keenay rubuc milyuun way soo bixi kari waayeen oo meydkoodii iyo lafahoodii waa kuwan maalin walba roobku soo saaro waxaa laydin dilayay laydin xasuuqayay ma ahayn reer hebel baa tahay iyo magaalo heblaayad ka timid waxa lagu dilayay Somalilander baad maxamiyadii Ingiriiska ee Somaliland British Somaliland Protectorate ayaa deganayd oo ku dhalatay oo ka mid ahayd taasaa lagu dilayay dambiyaad cid kale ka gashay ma ahayn kaasaa lagu dilayay kaasaa diyaaradu u kacayeen intay madaafiic cabaystaan kugu soo daadinayeen idinku soo daadinayeen awowayaashin iyo aabayaashin iyo magaalooyinkiina iyo guryihiina iyo xarumihiina caafimaad looga soo daadinaya waxaad moodaa in malaha la iloobay oo ay maskaxdeena ka sii baxday dhibaatooyinkii halkaa ku keenay waalidiinta intii ka maqana dilay qurmoon yahow isla weyn yahow Somalilander yahow ayaa lagu dilay intii qurbaha ku dhalatay ee dibadaha joogta alxamdulillah meel wanaagsan baad timaadeen haddaad wadankan joogtaan iyo haddaad wadan kale timaadeen waxbarashaad hesheen laakiin se waalidka iyo ehelka iyo dhiigga iyo dheecaanka waa Somaliland maanta 7 sanadood dabadeed haddana wadankiina waa la soo weeraray cadowgii shalay xasuuq geystay ayaa maanta haddana tuuto loo soo galiyay Morgan the butcher of Hargeysa ku magac baxay ayaa haddana tuuto loo soo galiyay oo leeyahay intii hambadii hadhay iyo intii ka soo tarantay kale oo dib ugu noqo meel maanta ku sugay Ilaahay baa og laakiin se wali cadaawadii buu ka daba yimid oo caruur yar yar oo meelaha laga soo kireystay oo qoryo yar yar loo soo dhiibay ayuu yiri waan soo hogaaminayaa oo Somaliland baan ku soo duulayaa oo Somaliland baan soo qabsanaya oo Somaliland markuu jamhuuriyaddii Soomaaliya ciidankeedii oo madaxda waxa uu qabsan kari waayay ayuu maanta inama yar yar oo firdhadahaayo qoryo loo soo dhiibay yiri baan ku soo dhicinaya meydkoodii waa tii shalay iyo doraadii la celinayay dhaawacoodii waa tii laha gurta kuwa dhintay kulli waa caruurteena waa caruur Soomaaliyeed ku farxi maayo laakiin Somaliland ugu soo duulana ku farxi maayo dadaaranka aan la hadlayaa dadkan la hadlayaa waxa weeyaan Somaliland dhowr doorasho inuu soo galay Cabdiraxmaan Tuur baa yimid Allah yarxamo doorasho la galay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ayaa loogu riday Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal tii Allah ku timid daahir rayaal kaale kaahin ayaa ka dhaxlay doorasho galay waa kii helay doorasho kale uu galay waa tii laga helay markii hore uu ka helay udub ka helay kulmiye te kulmiye ma noqon cadowe
wuxuu noqday xisbi mucaarida oo laakiin doorashadii un laga helay laakiin Somaliland nimadoodii aanay dhaawac gaadhin. Siilaanyo si sharaf leh ayuu doorashadii laga helay u wareejiyay u aqbalay u saxiixay. sharaf weyn bay u soo kordhisay isagoo markii horeba zaciim ah oo markii horeba halgankii xoreynta Soomaaliland kaalin weyn ka galay. sharaf weyn bay u soo jiiday. doorasho labaad baa la galay. daahir yaali kaahinkii shalay isaga ka helay ayuu Axmed Maxamuud Siilaanyo ka helay. xil wareejintii daahir yaali kaahin ku wareejinayay Siilaanyo adduunka oo dhan markhaati ka ahaa. xafladii wareejintii sharaftii salaantii saxeexii maamulkii haykalkii dowladnimo sidii labadii madaxweyne ay wala kala wareegeen. qofkii walba Somaliland jeclaa wuu u qushuucay. doorasho kale maanta timid 3 xisbi oo xalaal ah oon midna kontrabaan ahayn ayaa tartankii galay. dadkii baa leeyahay kala doorta midba mid qofba wax buu ugu riday. qofka kii uu doonayay ayuu ugu riday. waa la tiriyay waxay qofkaas batay kana ku xigay kaasa intaa helay. waa lagu noqday waa la hubiyay goob joogayaal baa joogay Somaliland oo dhan baa ay markhaati ka ahayd. waa la tiriyay tiradii waxay ku soo baxday in Muuse Biixi Cabdi helay oo madaxweynenimo loo dhaariyay oo Axmed Maxamuud Siilaanyo yimid oo isna xilkiisidii isagaba loogu wareejiyay. Somaliland ay sharaftaas u soo hoyatay. Somaliland ayaan maanta xafiiskeedii fadhiyaa. waxaan garabkayga ah calankii Somaliland. waxaa garabkayga midig fadhiya danjirihii Somaliland. waa qof shakhsiya. Sakariya maanta wuu joogaa. berito nin kala fadhiisan ama gabar kala fadhiisan. qofkii Somaliland matalaya ee Somaliland hawlaheeda iyo danaheeda u shaqeynaya wuu amaanan yahay. ana diyaar baan in la shaqeeyo. waxaan doonayaa Somaliland meeshii aad joogtaanba kulleyba warkan uu idin soo gaaraya. haddaad Australia joogtaan iyo haddaad Mareykan joogtaan iyo haddaad Ingiriiska joogtaan iyo haddaad Canada joogtaan iyo haddaad waddankeennii joogtaan Somaliland. waxaan doonayaa doorashooyinkii waxaa imika laga soo wareegay 2 bilood 6 bilood. waa la soo hambaliyay. waxaan doonayaa aad ka bogsataan. waxaan doonayaa in Somaliland nimadeena soo noqotaan doonayaa. waxaan doonayaa gacmaha idinkoo Somaliland ay is haysta inaad cadowga meel uga soo wada jeedaan. waxaan doonayaa inaan cadow yar oo jilicsan oo fulaya oo baktiya oo idin kala dilin oo warka idin kala qaadin oo aanu idin kala iibsan oo wararkan imika la yiraahdo ma Somaliland baa soo duugtay. xaqiiqda ogaataan in Somaliland maalintii aad u dabaaldegayseen aynu u dabaaldegaynay xornimadeena iyo kala go'eennii aan ka soo go'nay Soomaaliya in cadowna soo weeraray oo haddana maalintii dambe duufaanku inagu dhuftay oo haddana cadowgeena soo weeraray. ma cadowgii diyaaradaha cirka geeyay ee madaafiicda kugu soo daadinayay ee adeeradeen iyo aabayaashiin dilay miyaa maanta hadhku jiidaya. Somaliland nimadaada iyo qarannimadaada mid walba ka xoog weyn oo ka qurux badan. xaqii Ilaahay baa kula jira. sharci baad ku joogtaa. Somaliland cidna dulmi mayso, cidna ku duuli mayso, cidna wax aanay xaq u lahayn ka dooni mayso. dalkaaga xor baad u tahay. xalaal baad ku joogtaa. waxaa tahay Somalilander baad. waxaa tahay qof dhiiggiisa iyo dheecaankiisaba Somaliland yahay. haddaad wiil tahay iyo haddaad gabar tahay. waxa la idinku sheekeeyay la ma Soomaali waa mid. warno Soomaali waa mid oo qofka jooga in Soomaali ku abtirsan waa Soomaali. laakiin se haddana qaarba magaalay degan yihiin dal bay degan yihiin. anigu dalka la yiraahdo Somaliland ayaan deganahay. Soomaali oo dhan inay isu timaado waa tii la doonayay. waa tii la rabay in la isu keeno. waa tii says qaban weyday. waa tii isu iman weyday. waa tii Djibouti gooni u baxday. sharaf iyo bay leedahay
iyo maxaan kula dawlad bay leedahay wanaagsan bay leedahay oo amaanan bay leedahay oo ehel u noqotay Somaliland iyo Soomaaliya intii balanbalka lagu jirayba intii itaalkeeda ahayd gacan u fidisay meeshii lagu cararay meeshii lagu badbaaday bay ahayd Somaliland waa dal jira cidii Somaliland u dhalatay xisbi iyo macaarid iyo meel iska dhiga xafiiskan معارض iyo محافظ iyo qofkii walba Somaliland ayaa leh wax xafiis u yahay waa safaaradiini waxa weeyaan maamulkiini waa safiirkiini idinku idin shaqeeya qabiilna uma shaqeeyo xisbina uma shaqeeyo qaran buu u shaqeeya qarannimadiina dhaawicina qaran baa ka weyn qabiil qaran baa xisbi ka weyn colaad iska saara cadow ka weyn baa halkan duleedka idin soo fadhiya iska saara colaada dhexdiina taala heshiiya issaamaxa gacmaha isqabsada muujiya inaad Somaliland meel uga soo wada jeedaan gardarrada dulmiga meel uga soo wada jeedaan dilka iyo gardarrada iyo soo dadka ku soo duulaya meel uga soo wada jeedaan Somaliland ilaahay wuu jecel yahay meel wanaagsan baynu joognaa maanta shirkii aanu joognay baarlamaankii aad baan u qushuucay marba ilmo igu soo joogsatay waan is celinayeen waxaan arkay Somaliland dayaca weyn ee la haysto iyo maxaan ku raayay iyo sanay umada wooga warhaynan meeshii aad joogtaanba Somalilanders sida cadowgiina u dheereeyo oo culaadiina ugu dheereeyo idinkuna ugu dheereeya inaad ismuujisaan oo magaciina meeshii walba aad joogtaan geysaan ood ku faantaan ood dhistaan oo difaacdaan ood u hadashaan oo cidii dulmi ku haysa meel uga soo wada jeestaan ووقت رمضان ووقت العبادة يستو ووقت إلهي جعليها بريضة إلهي إن شاء الله إنك مغلدونه إن إلهي Somaliland ميل وناكسن مستقبل وناكسن النبت قريدا وناكسن إلهي نسيه هرمركها وناكسن اللي قفانه محيط هي لدنانتو وابتان كادي لي أبوير انت إنو سو كردي ديمقراطي النمدا إنو سو كردي يدك دايرة إنو سو كردي هرمركها إنو سو كردي iyo dawladaha raba inay wax nala qabtaan ee saaxiibtinimadeena u soo socday diyaaradihii biqaadi kar waayeen ayaa raba in la inaga dilo ilaahu nala qabo ilaahu Somaliland badbaadi ilaahu niyadda wanaagsan wax noo ku qabo cidii Soomaaliya ee wanaag doonaysana ilaahu la qabo waan salaamaya hooyo wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu laakiin waxaan idin dhiibayaa مصطفى أو مدح جالية Somaliland إدل كان سويدن السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم maanta salaasa oo aan ku jirno bishii Ramadaan bartamaheedii waxaan markii ugu horeysay runtii aan halkan leeyahay adna professor adna dr adna runtii booqashada jeclaateen inay noogu timaado Sweden iyadoo runtii dano fara badan runtii ka timid iyadoo Ingiriiska joogta haddana casuumad loo fidiyay jeclaatana inay la kulanto community-geeda kalena qayb gasho shirar waaweyn muhiim ah oo runtii u muhiim ah dhammaan reer Somaliland iyo xukuumadeena runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waqtiga qaaliga ah ee wanaagsan ee lagu jiro cadceedna runtii kulushahay Sweden aad timaadid oo aad kala qayb qaadatid bulshadaada kana hadashid speech aad u fiican oo qiimo leh oo qaayilan runtii aad ka jeedisid waxaan anu oran lahaa beri horeno ictiraafilnaan haddana helnaan kun lamid ah dr adno kala runtii maanta runtii speechki mid aad iyo aad runtii u qiimo badan buu ahaa anu waxaan arkay qaar meesha joogay oo cadaan oo qiirooday markii arkeen sawiradii iyo qalfooftii iyo taariikhdii iyo waxyaalo badan anigu dhadeedu runtii Somaliland anigu ka dhareegsan oo og waxa dhacay baan runtii hadana qiiro labaad igu noqotay waana runtii wax loo baahan yahay in ay MBA-da dalkan Sweden ee runtii inta badan aan waxba ka ogeyn in runtii ay fahmaan bal taariikhda Somaliland runtii speechkaasi waxaan filayaa inuu wax weyn ka bedeli doono aragtida Somaliland ay u arkaan qolooyinkan MBA
runtiina maadaama doorasho lagu jiro oo aad timid waqti runtii muhiim oo Sweden September doorasho la gelayo xisbiyadan oo arrintan oo kalena ay ku tartamaan ku loolamaan oo codna ku raadiyaan oo yiraahdaan waa inaanu ilaa waxa jooga 230,000 oo reer Soomaaliland oo ay cod ka sugayaan iyagu ba markaa iminka jirta sidoo waxay ka yeelahayn oo qalatus markaas kulliba halkan waxa ka imaan doona tartan fara badan intii aan joognay waba jeclaadeen ba qaarkood baaba jeclaadeen inay tagaanba Somaliland iyagoo group ah oo kala xisbi ah runtii tamahadana waxa iskale ilaahay ka soko Dr. Adna oo runtii muujisay maxaan ku raada speechkaas iyo safiirka Soomaaliland jooga dalkan Sweden Sakriye Xasan Wacays oo runtii aan ahayn markii ugu horeysay kulamo noocan oo qabto oo hore u qabtay 2017 16 intaba waa lagu qabanayay baarlamaanka oo baarlamaanka waxa iska noqday meel runtii noleenahayba oo aan mar walba joognaba marka laga yimaado meelaha kale sababtoo marka Soomaaliland aad uga dheregsiin shirarka inta badan meeshaas lagu qabtaa iyo inta kale runtii ka soo shaqeysna aad bay u mahansan yihiin MBA-da ah runtii meesha joogay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa alxamdulillah waxaan rajayn doonaa inuu miro dhalin doono